asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. mar kale iyo kulanti wanaagsan iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada channelkayga baro caalamka. waa maxamed sayiid. maanta muuqaalkan waxaan ku dulmari doonaa hadduu alla idmo sababaha keena ama sababaha dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay u yihiin shaqo la-aan ayagoo haddana wax bartay jaamacadana kasoo qalinjibiyey. waxaan dulmari doonaa ilaa iyo 5 qodob oo waaweyn oo sabab u ah ama asal u ah inay dhalinyarada wax soo bartay haddana soo qalinjibiyey ay haddana shaqo la-aan ku dhacdo. fadlan mar kale iyo muuqaal cusub haddaan ugu cusubtahay nagu soo biro, subscribe, share, asxaabtaadana gaarsiiya. ugu horeyn, waxaa jirta sanad kastaba inay jaamacadaha soomaaliya kasoo qalinjibiyaan kumanaan arday oo soo kala barta xirfado kala duwan. ha yeeshee markay yimaadaan suuqa aanan helin shaqo, balse waxay sii kordhiyaan sare u qaadaan suuqa shaqo la-aanta. taas micnaheedu waxay tahay dhalinyaradii aanan haysan qorshe, dowladdii aanan u samayn qorshe dhalinyarada lagu shaqaalaysiiyo iyo in laysku maajgareeyo dhalinyarada soo qalinjibisa iyo baahida suuqa. taa waxay keenaysaa in dhalinyaradii suuqa ay kusoo yaacaan oonan shaqo helin. nin walba shaqo la-aantii kaalin uu ka qaato sare usii qaado. waxaa shifti garooba ama waxaa sare usii kaca suuqa shaqo la-aanta. marka aan muxuu ahaa waxaan kusoo koobay waxyaabaha asalku ah arrimahaasi 5 qodob. inkastoo ay jiraan qodobo kale ka badan dhici karto, laakiin inta muhiimkaan u arkay waa 5 qodob, khaasatan dhalinyarada waxbaratay quseeya. qodobka koowaad, fursadaha shaqo oo wadanka aada ugu yar. taasi waxay kaalin ka qaadataa in maaragtay suuqa shaqo la-aantu sare u kacdo. ardadana markii ay soo qalinjibiyaan ayaan shaqo dhaqso helin. sababta koowaadi waa fursadaha shaqo oo yar. dal kasta oo horumaray wuxuu leeyahay warshado waaweyn oo ganacsi, wuxuu leeyahay shirkado waaweyn oo ganacsi, wuxuu leeyahay maalgashiyo badan. sidaa darteed dalkeena ama Soomaaliya waxay uga duwan tahay, intaba ma lahan ama hadday leedahay waa ay ku yar yihiin. sidaa darteed taasi waxay kaalinta koowaad ka qaadataa shaqo la-aanta inay sii baahdo ama shifti up samayso. Soomaaliya fursadaha shaqo waa ay yar yihiin, shirkadahana waa ay yar yihiin. sidaa darteed fursadahana way sii yaraanayaan. qodobka labaad oo asal u ah in maaragtay shaqo la-aantu sii baahdo ama dhalintu marka ay soo qalinjibiyaan suuqa shaqadu ay maaragtay sii sare usii qaadaan waxaa kamid ah khibrad shaqo la-aan. dhalinyaradii oo soo qalinjibiyay jaamacadihii kasoo baxay iyo shirkadihii yaraa ee wadanka ka jiray oo rabaan qof shaqaale khibrad leh. waxaa kamid ah requirementskooda kale intaas sanad 2 sano oo muxuu ahaa qof leh khibrad shaqo. ninkani waa fresh, hadduu soo qalinjibiyey ma lahan khibradaas raadinteeda. iyo dhalintii haddii fresh soo qalinjibiyeen khibrad lahayn waxay kaalin ka qaadataa inay shaqo la-aantu sii baahdo. dhalintanu ayaan shaqo helin. shirkado badan waxay raadiyaan khibrad shaqo. ardaduna waa kuwa fareesha hadda soo qalinjibiyey ma lahan khibrad hore, ma aysan haysan khibrad, ma ayan samayn ardada qaarkood internshipku waa muhiim. wuxuu ka caawiyaa ardada khibrad shaqo inay helaan, waayo internshipka muddada uu socdo ardadu way shaqaynayaan, si volunteer ayay u shaqaynayaan. intaas shaqadaas saacadahaas waxay u gelayaan iskoorkay u gelayaan. sidaa darteed khibrad bay u noqotaa. ardada qaarkood ma sameeyaan internshipka. taasna waxay sii kordhisaa khibrad la-aanta oo ayan door u yeelan inay helaan shaqo. waayo kambaniyadu waxay rabaan fursad qof khibrad shaqo leh. shaqo hore ayayna usoo qaban, waayo hadday soo qalinjibiyeen shaqo hore ma ayan soo qaban. sidaa darteed khibradii ma haystaan. taasi waxay keenaysaa in muxuu ahaa dhalinyaro badan ay waayaan muxuu ahaa shaqo. qodobka 3aad wuxuu yahay xirfadaha suuqa shaqada loo baahan yahay iyo waxyaabaha ardaydu ay soo barteen oon ismaajgareyn. mararka qaarkood jaamacadaha waxay bixiyaan aqoon guud, laakiin suuqa shaqadu wuxuu rabaa xirfad gaar ah sida computer skills, graphic designing, digital marketing, programming. intaas ayuu u baahan yahay. jaamacaduhuna waxay bixiyaan aqoon guud. dhalinyarada badi xirfadahaas waxay helaan dhalinyarada badi leh xirfadahaas aan soo sheegnay dhaqso ayay helaan fursado shaqo ah. balse kuwa muxuu aqoonta guud soo bartay way ku adag tahay, waayo xirfad gaare ay soo barteen ma lahan. marka dhalinyaraha waa inay xooga saaraan sidii ay xirfad u baran lahayn. xitaa hadduu jaamacadda kusoo bartay aqoon guud, waa inuu xirfad samaystaa uu bartaa. qodobka kale afraad ee asal u ah in shaqo la-aantu sii baahdo waxaa kamid ah dad badan
oo muxuu ahaa suuqi shaqada soo galay oo shaqo raadinaya, aan ardada xataa ka mid ahayn oo shaqo raadinaya, dadkaasoo suuqi shaqada ku jiro ayagana waxay saameynaysaa inuu shift up sameeyo suuqa shaqada, inuu sare usii kaco shaqa la-aanta, unemployment rateka inuu sii bato. sanad kasta dhalinyaro badan ayaa qalin jibiya jaamacadda, laakiin shaqooyinku waa ay yaryihiin oo dhaqso shaqo ma helaan. tartan badan ayaa ka jira suuqa shaqada, dhalinyaro badan oo soo qalin jibisay, dad hore shaqo la-aan u ahaa iyo dad muxuu ahaa hadda shaqo raadinaya oo ardadiina kamid ahayn, intaba waxay sare u qaadayaan marka suuqa shaqo la-aanta ah. taas tartankaas ayaa wuxuu keenayaa in ardadii shaqo la-aan ay ku dhacdaan oo hamigoodina sii jabo, waayo qofka marka uu soo qalin jibinayo wuu faraxsan yahay, wuxuu aaminsan yahay inuu soo qalin jibiyey, soo dadaalay, wax soo bartay, shahaadana uu haysto, uuna shaqo helayo dhaqso ah. balse suuqa shaqada markuu yimaado wax ka duwan ayuu la kulmaa. wuxuu suuqa lasoo galaa with high expectation, laakiin suuqa wuxuu la kulmayaa waxuu filanayay, filashadiisa wax ka duwan ayuu la kulmaa, isagoo intaasana wax soo bartay, shahaadadii wato, haddana shaqo la-aan ku dhacaysa. marka taas waxay keenaysaa mooralka ardada inuu hoos u sii dhaco. qodobka shanaad waxaa ka mid ah dhalinyarada ama dhalinyaro aan ganacsi bilaabin, dhalinyarada oo ku fikira keliya inay shaqo helaan oo dowlad shaqo ka helaan ama hay-ad ama company shaqo ka helaan, ayaan ku fikirin iskooda inay shaqo u samaystaan, shaqo abuurayaal u noqdaan. taasi laftirkeeda door ayay ku leedahay shaqo la-aantu. dhalinyaro badan waxay sugaan waa shaqo dowladeed ama shaqo urur ama shaqo company inuu shaqo siiyo si ay maaragtay mushaar u helaan, balse halkii ay ugu fikiri lahaayeen in ayagu shaqo bixiyayaal ama shaqo abuurayaal noqdaan oo shirkada yarar ganacsi samaystaan oo howla samaystaan oo iyagu iskooda shaqo abuur u noqdaan, balse taas waxay keentaa in shaqo la-aantu sii baahdo. dad badan waxay maaragtay bilaabeen oo hadda shaqo iskooda u samaysteen, shaqo abuurayaal ku noqdeen, ganacsiyo yar ayay samaysteen, online business bay samaysteen, freelancing ayay samaysteen, ganacsiyo yar way sii kobcaan, waxay isku bedelaan ganacsiyo waaweyn. marka qofka waa inuu opshano badan haystaa, waa inuu shaqo ha raadiyo, suuqa shaqada ha yimaado. option kalena waa inuu haystaa oo ah inuu iskiisa shaqo u samaysto, ama ganacsi yar ha samaysto, ama kale muxuu ahaa online business kale wax ha samaysto. waa inuu optionkaas lahaada, keligiidaas inuusan 100% awoodiisa inuusan isugu geyn inuu shaqo hay-ad ka sugo ama dowlad ka sugo. waa inuu iskii shaqo u raadsadaa, ganacsi yar uu sameeyaa. lacag yar ayaa lagu bilaabi karaa, ganacsi yar wuu samaysan karaa, kadib wuu kobcayaa ganacsiga, isaga ayaa shaqo loo soo doonanaya. markaa ugu dambeyntii marka qaar guud ahaan shaqo la-aantu dhalinyarada way sii baahdaa oo aad ayay usii badan tahay badeed, laakiin sida aan soo xusnay, shaqo la-aanta waxaas asal u ah oo sababa fursadaha shaqo wadanka ku yar, khibrad la-aan ardadii oo aan waayo aragnimo shaqo hore u lahayn, xirfadaha shaqo oo yar, tartan badan oo suuqii ka jira. laakiin dhalinyarada waa inay bartaan xirfado cusub. haddii aad xirfadaadii suuqa shaqada aanan baahideedii ka jirin oo shaqo lagu helayn, waxaa kuu furan inaad xirfad kale barato. macnaheed ma ahan inaad haddana jaamacad dhigato 4 sano 5 sano aad soo barato, ma ahan. waa courses online courses samayn kartaa, xirfado oo courses oo muddo kooban ah ayaa la baran karaa. waa inaad xirfad cusub barataa, aadna ku maadgaraysaa xirfadda baahideeda ka jirto suuqa tartanka. sida si lamid ah, waa inaad maaragtay bilowda ganacsi yarar, waa inaad ka faa'iidaysataa internetkana waayo dad badan ayaa lacag ka sameeya ka faa'iidaysta. marka guud ahaan dhalinyaradu waa inay, haddii ayan qorshe kale loogu talagalay, guud ahaan dowladda ugu talagashay ayan jirin, waa inay iyagu qorshe la yimaadaan oo ay maaragtay iskooda shaqo abuurayaal ku noqdaan oo shaqo ku samaystaan. vlogan intaas ayaan kusoo koobaya. hadduu idin anfacay, waxaan rajaynayaa inaad subscribe iyo like iyo share iyo asxaabtiinana alla wadaagtaan. mahadsanidin.